عليكم أصحابتا كل وين سلامي ولا ماذا هو عيل أي هاي وحن مدويو عجل كان مر بينن من الربع وجيجنا مشان كصوب بحضو لكن وحن آد عيل إيجا هاي وحيت هاي دولة دين الصومالية وحوين صومالي والأوجي هاي دبك أي كجرتو دبعتها أي كجرتو والأوجي هاي وضن كان إن لا يستن والأوجي هاي waxaanse ani la yaabanahay dadkan aan madaxda ka dhignay wada xaasidiinta ah ee aan fakareynin ee u jeedo meesha uu wadanka marayo wadankeena wadamooyin badan sidaad ogtiin ayaa gacmaha kula jiro marka anigu waxaan la yaabanahay dowlad Soomaaliland oo walaaladeena ana dowladan waqaana intaas oo sano ayay wadankeeda nabad ka dhigatay dadkeeda nolol ku noolaayeen waana dad walaaladeena marka anaga waxaan la yaabanahay anaga afartoo qofooda meel fadhiisatay anaga nama matasho maxaa dadka shacabka ah ee magaalada Muqdisho ku nool ama magaalooyinka kale ku nool maxaa cod loogu qaadi laayahay maxaa loo wadankaas nabadda ah maxay ugu ilaaday on kaliya waxa weeyaan malaaka markaad fiirisid waa la iscaynayaa Somaliland Soomaaliya caynaysaa maxaa la Soomaaliya waxay caynaysaa Soomaalida kale kuwa dadka kale oo anaga naga dhex shaqeynaya anigu hadday qabiil ma rabin aan ka hadlo laakiin waxaan anaga habargidira naka wiyana anaga habargidira ka ahay waxaan taageersanahay Somaliland dabcan way jiraan dad badan oo daarood ah oo ayagana taageersan Somaliland qabiil ayadoo dadka waxa ilaahay u abuuray qabiilka in la isku aqoon laakiin anigu waxaan la yaabanahay dad saas wadankooda wadaniyiin waa sida hadii runta laga hadlo dadka Somaliland waa dad wadaniyiin boqolkiiba wadankooda ka adag cadawgooda iska qaban karo og meel kasto looga soo teekar iska qaban karo anaga waxaan iska qaban karna ma lahan balaayo intaas oo qabiilada ayaa anaga nagu dhaxnool runtii dii lagu hadlo hawiyaha ahaato daaroda ahaado jini kasto nala dignaa ahaadaan qabiilad tira badan way ma wadan oo maanta la xali karo maahan Muqdisho intaas oo kumanano qalqi ah ayaa wada degan waa caasimadii ku leeyihiin 20 oo qabiil ayaa degan marka maxaa lagu dhahaa qabiila maxaa lagu dhahaa garoobo kale hadda maanta nabad weeyaan waa laga dhisi karaa waa dad intii istaqaana ayaa degan galmudug waa la qaban karaa inta degta ayaa istaqaana waa la iska qaban karaa laakiin Muqdisho dhibku wuxuu ka jiraa waxay tahay Muqdisho intaas oo qabaa'il ayaa ku nool waxa nabad weligeed ma ka dhalanayso koos wixii soo gala wixii ka baxa laba garanayaba runtii loo hadlana wadankaas hadii runta laga hadlayo Soomaaliya waa la haystaa qabiil meel hadii la iska soo dhigo Soomaaliya anaga qabiilana lagu jeedinayo laakiin duumaad kala haysto marka way anaga danteena waa qoolaanahay oo walaaladeena bal inta nabad ah xaqooda xataa anu waxaan taaganahay Puntland laftigeeda xaqooda oo galmudug laftigeeda hadii nafheelays laftigeeda xataa xaqooda walaalayaal maxaa lugta la iskaga xirayaa lugta maxaa la iskaga xirayaa saan dadka way ku kala wala isnacbaana maan wax isjeclaanaya ma lahan maanta dii la wada bixi lahaay oo nad mudaharaad lahayn oo mudaharaad lahayn in Somaliland ku taageerno in walaaladeen go'aan oo xataa ku taageero xataa inta kale nabadda xataa inay kala go'do wallahi aniga ma aaminsan wax la yiraahdo Soomaali isku imad wajecla lahay laakiin ma dhaceyso believe me wallahi ma dhaceyso in Soomaaliya waligeeda mid noqoto because dadkeen waa dad daciif ah waa dad lacag ku shaqeysto kuwa baarlamaanka jooga xataa ahaadaan kuwa wadanka soo galiyo ganacsi ama jini ha ahaadaan wardaaweyn dhaca la keena oo dadka la rabeen lagu dilo taqaatiir been haday timaado dadka iska qalqalanayso meel kasta waxay u xiran tahay Turkiga ahaato ha ahaato Mareykan ha ahaado jini ha ahaado ayaa wadankeeda meel kasta qafkas iska xirxiratay aseerta laga yeelaa laakiin adiga maanta danta kugu jirto waxay tahay ana sheekada waxaan ka leeyahay danta kugu jirta maanta waxay tahay markay maanta Somaliland wadan Soomaaliya ay Somaliland dawlad meel taagan ay noqoto uma maleynayo qof Soomaaliya meel kale ka imaado oo dayacsan inay ku fiirsan leedo wallahi waxa aaminsanahay maanta dawladda sidii la dhaafi lahaay
in berika maal ayaga lagu baxsan lahaayo ciidamadoodii ku imaadaan sida hadda maanta Djibouti oo kale ku ilaalinayso kaa qabaleed cadow taas aan aaminsanahay war ilaahay hadii laga yaabo Soomaaliya la isku soo baxo hal mudaharaadkeena ha noqdo in lagu taageero in Somaliland ay go'do wallahi oo billahi in been ku sheegan mudaharaad ayaan jecelahay inaan ka sameeyo Muqdisho lagu taageerayo walaaladeena la isku soo baxo Soomaaliya isku soo baxdo hal taageero walaaladeena in gool u istaagan hadaa maanta laga fiirsan cadaawada waan sii soconaysa ayagana wana nacayaan anagana meel ma gaareyno warabal horta dad anu waxaan taaganahay bal qof dad ha noo noolaada intii la isla dhiman lahaay dad ha noo noolaadaan intii la isla wada dhiman lahaay oo la baabi'i lahaay wixii noolaan karo ha noolaadaan ha laga fiirsado Soomaaliya wax la yiraahdo Soomaaliya shanta Soomaaliya ja waxas been wax ka jiro wallahi ma laha anu waxaan aaminsanahay Somaliland laftigeeda ha goodo Puntland haday nabad tahay ayada laftigeeda ha goodo Jubbaland haday nabad maanta keenta ha goodo Muqdisho believe me 100 sano oo hadda ma nabadayso nabad ma helayso waxay ku helayeen waxay tahay intii waalneed oo cirkii dhulka laga keenay ayaa isku timid intii qabiilaadkaas kala baxayaan nabad ay helayso ma laha galmudug meel hay istaagtay ayada laftigeeda wadanka inta wax laga qaban karo ha kala go'aan shabeelada hoose wala shabeeladaas ha go'aan ayada laftigeeda hadii nabad helayaan war hadii la noolaan karo cunug Soomaaliya maanta haduu nabad heli karo oo meel maanta kasoo istaagi karo maanta lagu nabadeyn karo haduu jiro dawlad xalaga sameysto bal intii aan kala googin dadkan go'ano inta soo sano nabad helay ha go'aan taas aniga aan dhihi lahaa